اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu hore ciddii joogtay iyo ciddii dhegaysatayba 6 muxaadaro oo ku saabsan sidii tataarku ay u baabi'iyeen dhulkii muslimiin iyo 3 dowladood oo waaweyn oo dowladihii muslimiinta ka mid ahaa. muxaadaradii 7aadna waxaynu kaga warannay dowladdii ugu dambaysay afraad ee dagaal la geli doonta iyo wadcigeedii siyaasiga ah iyo qaabkay u dhalatay ama qaabkay u jirtay oo ah dowlad ilmamaalik. maanta 2 muxaadaro kale ayaa waxaan kaga warrami doonaa markaa qaabkii loo celiyey ama se loo jebiyey dagaalyahanadii tataarka iyo weliba qaabkii markii dambe dowladihii tataarku ay u islaameen. waa 2 ariiq oo culamo muslimiin oo kala gedisani martay. qolana ariiqu dacwa bay u martay oo dowladihii sidooda u jiray islaamnimo u bedeleen. qolana ariiq iljihaad bay u martay oo tataarka horu socodkiisii iyo wixiisii bay joojiyeen. 2 qadiyadood baan rabaa inaan soo bandhigo. ta koowaad marka oo dariskani uu ku saabsanaan doono waa dagaalkii loo yaqaanay caynu jaaluut. caynu jaaluut waa magaalo ama waa meel goob uu ka dhacay dagaalka kani. waxaynu soo tilmaamnay masar iyo daraabaadkii siyaasigee ka jiray iyo duwal ilmamaalik ama mamaaligta dowladdoodii markay samaysantay iyo wixii dhab ka soo dhacay ee bilowga ahaa. waxaynu soo marray sanad gudihii iyadoo uu dhintay boqorkii hore najmudiin ayuubiga ahaa, la dilay inankiisii towranshaah, la dilay ciisadiin aybik oo madaxweynihii ku xigaya, la dilay shajaratu dur oo gabadhiiyana madaxweynaha noqotaya. waxaynu soo gaadhnay iyadoo uu maamulka gacanta ku hayo nin la yidhaahdo qutus ama qutus la yidhaahdo, maxmuud ibnu manduud qutusna lagu naanayso ama loo yaqaano. masar wakhtiga kan markaa masraxeeda daakhiligii saas u ekaa oo hawraad tiro badan ayaa dhexdeeda ka socday. dhan kale markaad ka eegto waxaynu soo marray iyadoo ciidankeedii maadaama inqilaaba uu isku dhigay uu gudihiisa iska dilay oo ciidanka qaybihii aan odhan karno way ugu xoog badnaayeen ay baxsadeen. waa mamaalik albaxriya nimankii la odhan jiray najmudiin uu sameeyey ay ka baxsadeen waddanka kadib markii la dilay guddoomiyahoodii ama hoggaamiyahoodii. jeyshi masar markaa ama ciidankii waddanka muslimiintii uu lahaa wuu daciifay maadaama uu dhexdiisa iska dilay oo mucaziyiintii iyo ay isu dileen mamaalik albaxriya. masraxa siyaasiga khaarijiga haddaynu eegno ama siyaasadda dadkii ku wareegsanaa waxay ahayd masar cilaaqaadka ay la leedahay cidda dabadda ka xigta oo dhammi waa cilaaqaad colaadeed. xaggan waqooyiga cidda rasmigee ka xigtay waa falastiin iyo lebnaan iyo meelaha imaaraadkii yaryaraa ee masiixigae tirada badnaa ee caka ay u xoog badnayd. caka, suur, sayda, bayruut, trablus, waxaasoo dhammi antakiya ilaa laga gaadhayo xeebtaa dhinaceeda waxaa ku taxanaa imaaraad saliibiya ama masiixiya ama nasaaro ah oo ah kuwii ay ku soo degayeen ama meelihii ay qabsadeenba markii ay yurubiyanku soo duuleen 7dii duulimaadee hore ee kii u dambeeyey aynu ka warrannay ee ay masar ku soo duuleen. dhanka kale markaynu eegno wakhtiga kan duwalkii ayuubiga ahaa ee ka jiray shaam
laftoodu colaad bay u qaadeen nimankan mamaaligtee qabsaday waddanka kan oo waxaynu sheegnay dhowr goor inay ku soo duuleen markaa masar cidna lama heshiisa ha dowladda ka dhisani meesha intaa waxa raacda dhibaato dhaqaale oo dunida waxa la yaqaanaa meel kastoo dagaaladu ay ku bataan inay ku dhacdo maxay dhibaatooyinka dhaqaale inay abuurmaan markaa masar gudaheedana dhibaato dhaqaale oo daran baa iyana ka jirta su-aasheen markaa isweydiinaynaa waxa weeyaan masar waxaa duulimaad ku soo ah aqwa dawla fi lcaalam holaako oo lagu qiyaaso ciidamadu wato 400,000 oo askari inuu wato waxa ay ciidamada holaako hordhacoodu degan yihiin markaa magaalada Gaza Falastiin xuduudan Masar ilaa halkaasoo haysta oo inta kale uu ka soo gudbay waxaynu u baahanay inaynu istusino oo maarayno oo ah mawduucul ibra qisada oo dhan dhulkaynu uga soconay kamid ah siduu u maareeyay Quds xaaladda nooca kana gudihii oo is haysta dabadii dawladkii ku dhadhawa oo la wada cola ciidan aad u xoog badan oo dawlad weyn oo ajnabi soo wado dhaqaale burbur haya intaasoo ku kulansan ayuu Quds madaxnimada qabtay Quds wuxuu ku talagalay inuu jihaatamo oo wax iska dhiciyo laakiin jihaadku ma aha frontko la tago oo qori la qaato wuxuu u baahan yahay siyaasad cadiima ka horeysa ولذلك waa dariska ugu muhiimsan meesha tan aan rabayna si fiican u fahamtaan Quds خطوات التغيير waxay culimadu ku tilmaamaan buu sameeyay talaabooyinkii isbedelka kow siyaasadiisii koowaad wuxuu ku bineeyay wadankan dadka degan inuu midayn karo wa ilaa haday kala tafarruqsayin cadow iskama celin karaan sawaa koox jihaatamaysa ama ha joogtaa ma ay joogin wadankan muslimiinta ah ee Masar haddii siyaasiyiinteeda iyo ciidamadeeda iyo dadkeedu ay hayaan iyaga gudahooda iyagu ay col yihiin oo isdilayaan oo aan soo sheegnay madaxdoodii inay inta laayeen inuu intaasoo ninoo madaxii inqilaab ku dhintay Tawran Shah Izzuddin Aybak maxaa la yidhaahdaa shajarati dur maxaa la yidhaahdaa janankii ciidanka haystay Farisuddin Qataay waxaasoo nina waciyo dumarba waxaynu sheegnay in dil ay muteen isagu markaasi wiilkii yaraa meesha ka inqilaabay oo qabsaday inuu dagaal galo aqwa dawla fi العالم inuu iska dhiciyo taasi waxay keensatay markaas inuu siyaasadkiisa dhan dib ugu noqdo awalan wuxuu ka bilaabay istiqraar الوضع الداخلي wadanka gudihiisa sidee siyaasadiisa loo sugi karaa wuxuu isugu yeedhay wadanka umaradiisii iyo qaadadiisii askariga ahayd iyo dadkiisii waayeelka ahaa iyo culimadiisii buu isugu yeedhay waa wadanka wixii madax ahaa ee talinayay ayuu shir isugu yeedhay dabeetana Quds wuxuu kala hadlay qadiyadda tan wuxuu ku yidhi markuu soo ururiyay inni ma qasadtu illa an najtami'a ala qital tatar waxaan idin sheegayaa buu leeyahay dadyawiina kan madaxdiya waayeelka ah wiilkan aan meesha ka riixay inqilaabay ee aan qabsaday dan kale kamalihi ilaa inaynu u midowno tatarka inaan iska dhicino mooyaane waxaanan ogahay buu leeyahay dawladnimo inaan yaroo caruuri haystaa inaanay wax dhicin karaynin walidalik hadda ila midowdaan oo aynu ku midowno inaynu tatarka iska celino waxaan ballan idin qaadayaa sultadu inay halkaa iga taalo oo cid idinka doontaan maamulka u dhiibataan yani Quds wuxuu leeyahay anigu ma yihiin madaxnimo doonaya waxaana haysanin raba inuu u taagan yahay inuu muslimiinta wax ka dhiciyo maadaama ay qadiyadu caynka tahay hadda waxaan u baahanay buu leeyahay inuu dagaalka gallo maalintaynu guulaysanana cid ay ummaddu u garataa oo madaxu noqoto أقيموا في السلطة من شئتم
قطس قطايات كان علماء وحيلي المسلمين تاهي عدالة يثق أيا لغتهم إياه ما هين منافق مناورة سياسية إنه دقة ورورية ونقول دقال قالوا كرسي وكل حجستنون يالا ما هين أسباب بدن تاريخية علماء الشرحان درادين لكن وقت غير وك قدبية وحكى معروفة قيادة النبطة قائدك مرموق يلا يقانو هجانك رسمي قاي وهجانك حالاتك أزماتك وما دورورين كره يعني وقتك نبتو تشرتي أزماتك قفك مع الأزمة ومد هجامين كره ورورين كره وقائد النبا نين كان يرونتي صفات القيادة والنبا بوت مدحدي يا أمردي يا علمادي يا دكي ويالك وحكوله الشيء إنه ماشى كدا دقيق عدي للربنا الله دورته سدنت أولياء يتهين التتار لدقالبه وحكالات دي بقول نقضي الدولة ديسي وزردي يكوي وأركييناني برنامج كان حميل كريم وعزلي وحكم ده ابن بنت العز نيل لورنشري وها وزير ردي شجرة الدر كبدي لورنشري كدوا وحكومة لي وزير ليلاد زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع وحوق العضي رجي ممالك البحرية يسهيين من كمده إنه عيد مدى ودايان وكبدلين وأنني سجن الله يدافع فارس الدين أقطاي الصغير الكبير وكيل الدلي اسكو مقع لكن وأنن كان له الله بعض قيادة عيدا كينو هقاميه بعض الرؤوس الفتن أمان من كي مدح ضهي انقلاب بدأ وضوي غيبة كمدنا وحرق قضب لابد بسمي أو دقال كانوا قد يرقروبيه قضب كاللبادة ودقال كانوا قد يرقروبيه وحويان العفو الحقيقي إنه إلى هذا أمده هيس السامحده والرقص دلي سياسة سكود دلي مدح بدن كلا خارجيي دبي كلا قادي كلا بحصدي وعيدا كمصر رقا وخفرد بدن له وحوق بدن له وحكم دها عيدا كيو سميين نجم الدين أيوب المماليك البحرية عيدا كاس جرن كي هيستوى كان للدلي قطس وحكتر سيء كوح كله ومعزي كوح دو سمية عز الدين أيبك عيدا كاسي رقيسي نكي وخب رد بدنا وانا بنكرنا وقت قارنا ولا ببرس نكي اللي ورنشري وبحصدي دمشق بوتقي ناصر يوسف بولا جوغا قل يبدنا عيدا ككمدي وكوي يا عي بقركي عباسيين تدحدحاديي اللي يري غزة يا غار كده ميلها فلسطين هدغان بد ودنka dhexdiisa iska joogan laakiin waa raga ay rag culubeen aan waxba gacanta ku haynin qofs markaa wuxuu yiri waxaan rabaa ciidankii mamaalika albahriya dhamaantii inuu dib u soo noqdo ciidankaasi inuu dib u soo noqdo khatar wuxuu ku yahay kursiga qudus bal xaqiiqo taariikhiya hadaan sheego iyaga dilay aakhirkii Papyrus laftiisa dilay iyo koox watay laakiin qudus inay khatar isaga iyo dawladdiisa iyo naftiisu gasho iyo in muslimku khatar galo wuxuu qaatay intiisu khatar gasho oo muslimku uu badbaado yani qudus wuxuu u taagan yahay inuu mamaalika albahriya uu ka xoog batay oo sidaa kaga takhaluso oo kursiga kan haysto laakiin ma iska dhicin karaa markaa dawladdii tataarka ahayd wuxuu ka doorbiday in isaga kursigan uu khatar galo bal uu aqbalay inuu kaba tanaasulo haddii ay muslimiintu isku raacday inuu tanaasulo wuxuu aqbalay inuu tanaasulo isaga iyo kursigiisuba inay khatar galaan laakiin faa'iidadu ay maxay tahay faa'iidadu ay tahay muslimku sidii uu guulaysan lahaa saadaradeed kafaa'adkii askariga ahaa jananadii iyo raggii ciidanka ka tirsanaya askartii mutamarrisiinta ahayd qaadadii kulliyat alxarb ka soo baxday ee ishayeen ayuu dhammaantiin dib u soo noqdo waa laydin cafiyey waa niman khatara nimankaa uu soo celiyey laakiin waa nimankii luwiisa taasic boqorkii faransiiska iyo ciidankiisa 700 ee safiine u watay
وانا ما كي عيدا كان يدبر قويين مع بقر كسوق الطي والرجع الله جمهر من دجال كتطار ساد ردت كرسي خطرها قلبوقات العفو عند المقدرة بيع على مضي هذا ما أمان يسقى كرسي فردية وكحوق بطيء أيو أقبل دمان تودين يصور نغضان ولبا وحاو قرني لمن كان وحي كوكلا فردين وحلا إلى هذا قاركود سلاجقة الروم بيوتجا تركيا قارقلين قاركود أردن بوركي كرك ماشى الله إلى هذا هيستي بيوتجا قار دمشق بيتشوجا وحي بدي بيوصل نغضه بل ما دحدودي هو سفي عن سودوي سو دجال كاودي يرجروبا القائد ببرس ركن الدين ببرس نكيل لورنشري ويسقوا وان مسلمة إيمان بدننا كتيرو دجال يهنا ويل خبير قوة دجال كا دجال الذي قدس له حرية رجع كسوق قيب قلايا نجم الدين يوقته قدس حرية وجننا دي عيد مده قامينية ولبدي جنان لويس يعيد في سيتشبيي وأنا خبيرة مركا كانت دأوين قطصي غلطة ترادا وياري وليبا وانك دمشق ناصر يوسف مركي كسو سعدي هولاكي عيدا كيسي لحاوران دقال قال لي يرهدين وينو بحينا مركو بحصدين أيوس كغهر يسو كلي إما واجهي كرو فرضت كي فلسطين بو سنسك قالي حقنا مصر رجيسي والله لينا يويس هيان مصر نو كسر دي رنكر واهي إسقى فلسطين دي حوريجية أيوه قطص فرين ودري ولي هاي سوق المصر هذا هو شرفون وإنه دجال قلينا أو حين سكعلينا تطاركه ولبا مركو مصر يموحوا قلاضي إقطاع منطقة قليوبي يقرا توليك وحسا وحاسد مسيء وحكى أمير من الأمراء من كايس هيان فرضت كعينها سيسو عليه أمير من الأمراء الكبار أي كدجا ببرسنا ونن ويله دجاليهنا وكفاءة قتالية عسكرية وله ونن ذكاله very intelligent تخطيطات كعسكري قال الله قدم بيا كمده وأن هدو يمادنا ممالك البحر يوم ما يكسو هيرنس يعني وجانا لقدم بيا وصان وضع السنة قطص وحي أمه وطين يهي نين أقول خطرت نفتي سمر كوات لبا هذه يقول ضدك مضحضة هي ما تشعله نين كلود وضنك أما ومدى الإحدى ذا مقع يما مسكلين ودين عيسى تاقناده وهي ضدك مضحضة وحي تشعليين إنه الوحيد نقضه أما أوريرها هايستا أما الدولة هايستا أما كانها هايستو إن لقى قرب هذا ما تشعله وأفراد يرددك أقبله إن قادة أي مدى كل حجرتو أنا سقاهين هذا ضير ولا أوري إسلامي ها النقضان ولا أورك لها النقضان ما ضحد واحد مدين عداديان إن يصاب عن قوة كله قطص وطراسك أقبلي بكم دي مركاسي ضل الله والله مكرامة مقعي ماموس ومدى كلين كدح موضع ولذلك أيها الإخوة وإن قرطان قضايا السياسة ماها معقولات قرى ماها أنا قرل يا أنا حقل يا أنا عينك له وقضايا كبيرة وبهان قفوا إنه جوانه دو مضربينه هقامية أما وحبدله إنه دول بدن وحكاية قابي وبهانته إنه قيميه شرارك سيدو وكلا دورنا مربان خيربان ماشي ولينا شر دورنا يساوون سيدو شرارك وكلا دورنا يويل قران كرا وينو نقضه وإنه نقضى قف لا بلادن ودك عفيكرة برا اللي يدلي أما برا نالا دعي أما برا كوح ضيادة اللي قصه هرشيستا أما برا كوح ضيادة اللي عاي أما برا كوح ضيادة اللي لا دقالمي دبيت ضدك اللي هشين منه واحد ضد لقوه قاميا معها ولذلك قطص وحقاطي بالشدي مسلمين تايدا مسر دقريديا وحي الراعبة بشاكلات كودة كلا قدسان يغا وطينو ملايو قطص مركز كان هدنا وحو بحي قضية صدحات بالله هذا السياسة الخارجية السياسة الخارجية
qayb waa muslimiin intii aan wali la qabsan shaam oo kale nimankii ayuubiyiinta joogay qaybna waa masiixiyiin imaaraadkaasi xeebaha ku taxan jooga ayuubiyiinta shaam jooga waa nimankii la colka ahaa dawla almamaalik ee u arkayay towraan shaah iyo inay dileen ee intaasoo duulimaad ku soo qaaday bale waxaynu ka warannay qutus laftiisa inuu laba goor ku soo duulay muqitadiin cumarkii la odhan jiray oo laba jeer celiyey waxaynu hore uga soo warannay ciizadiin aybakii lagu soo duulay oo uu celiyey yacni imaaraadka shaam ka jira iyo masar dagaal baa u dhaxeeya oo intaasoo goorba ayuubiyiintu soo duuleen iyagoo masar ku duulaya laakiin qutus wuxuu qaatay go'aan ah nimankaasi inuu heshiis la geli karo waa nimankii mamaaligtii baxrigii markay carartay dhammaantood soo dhoweeyey ee weliba rabay inay kula soo dagaal galaan dib ugu soo dagaalgeliya meesha tan nimankan uu rabo inuu xidhiidhka la sameeyo waxaa ka mid a baqdaad markii la qabsaday qaar baan xagga tataarka u duulinay masar ku soo duulo ayuubiyiintan ka mid a iyadoo baqdaad la haysto caasimat alkhilaafa alislaamiya ayuu tataar ciidan kuma saarina wuxuu ciidankiisii ku soo saaray masar inuu qabsado iyo dowlat almamaalik waxaas oo dhibi iyadoo jirta ayuu qutas wuxuu ka fakeray islaamkii waa kanoo saddexdii dowladood ugu waaweynaa jabe waxaa hadhay masar sidee islaam loo badbaadin karaa ma aha sidee kursigiisa loo badbaadin karaa taasi waxay keensanaysaa dad muslimiina oo cadow kuu ah ama aan kula koox ahayn ama mararka qaarkood xagga gaalka u janjeedhay inuu isku dayo inuu ka soo jiito ama ka soo kaxeeyo ama ugu yaraan inuu muxaayidiin ka dhigo muxaayidku waxa weeyaan dhexdhexaad inuu ka dhigo oo isaga iyo tataarka isu daayaan caqliyaadka maanta noole waxay odhan lahaayeen iyagaa murtadiina ka bilow sacankaa maaha ama caqliyaadka maanta jira waxay odhan lahaayeen gaalka ku-xiga un ku bilow oo qoladan kristanka iyo meeshan ka bilow tataarku wuxuu arkaa waxaan oo dhan khatar ka weyni inay jirto ayuu qutus u arkaya saa daraaddeed mashkilaadku way u kala ratiban yihiin iyadoo acdaa ay u wadayiin isaga qoladan kristankii waa u acdaa oo kuwa dagaalka hadda kala soo baxeen ayuubiyiintan muslimiinta sheeganaya waa u acdaa oo kuwa intanoo goor ku soo duulay tataarkuna waa u col oo intanoo guura ka soo guuray saddexda colba mar lama wada dagaalami karo si awgeed wuxuu ku talagalay tataarka inuu colnimadooda u daayo iska dhiciyo kristanka inuu heshiis la galo oo ay nabadgelyo un isa siiyaan kuwa muslimiinta wuxuu ka soo jiidan karo inuu ka soo jiito oo safkiisa ku soo biiro siyaasa alkhaarijiya saasu ku bineeyey dabeetana waraaq buu diray waraaqda koowaad wuxuu dirayaa annaasir yuusuf dimashqkii haystay oo markaa ka ugu xoog buuran ah ayuubiyiinta waraaqda wuxuu ugu qorayaa niyo waxaan rabaa buu leeyahay masar iyo shaam inaynu midayno oo cadowga adiga kugu soo socday kugu soo horeeya aynu iska wada dhicinno waa intaan dimashq la qabsan dimashq iyo xalab buu ka talin jiray intaan la qabsan cadowga inaan kula dhiciyaa baan rabaa labada wadanna intaynu isku darno adigu madax ka noqo laakiin gaalka aan la wada dagaalanno waraaqdu u qoray wuxuu ugu qoray baa la yidhi wain ikhtartanii khadamtuk wain اkhtarta قدمت ومن معي من العسكر نجدة لك على القادم عليك فإن كنت لا تأمن حضوري صيرت لك العساكر صحبة من تختار حلي هداد أغبشه نائب بانكون غنيا وكو شقينيا دولة هذه كو ديبيا هداد ربطه anigoo ciidankayga wataan kuu imanaya halkaasaan kaala difaac galaya masar sugi maayo inta la imanaye shaam baan ka dagaalgelaya anigoo ciidanka wata haddaad aniga iga shakisantay buu yidhi isku darso ciidankoo dhanna aan kuu soo diro ciddaad adigu doonto madax uga dhigo ciidankii masar joogay waan soo dirayaa shaam ha kuu yimaado adiga ha ku difaacaan waliba ciddaa doontana madax ka dhig buu leeyahay ciidankaasi oo kaxayso
ناصر ما أقبلت مدني مدى وديد مدو مرة بابويد وابو اسحان بابورو وحداني قابل دقال لما يمحان عدو لما دوبيها لكن kooxda dagaalanta ma hayne markii xalab la qabsaday ee isaga lagu soo dhawaadayna uu cararay qaataynu taariikhdiisa hore uga soo waranay sidii uu ordayo kolba meel u galayay meel yaro jafar la yiraahdo saxaara ah in hoolaka ciidamadiisii inta ku qabteen hoolaka loo diray nasiib darra laakiin intii hoolaka lagu sii waday ayuu qutus soo jabiyay ciidamadii tataarka firdadkoodii baa isaga hoolaaku u tagay hoolaaka dib u soo celiyo yiri kare waa khaayim ku shaqayn karaya meeshii madax uga dhigo isagoo dib loo soo wado ayaa firdadkii ciidanku jabiyay qutus firdadkoodii tataarkii oo caraysan ayaa cidla ka helay iyadoo madaxnimo loo soo wado kuwaas dilo ka takhalusay isaga ayan kaanat naasir wuu diiday dabatana wuu cararay ناصر كاسي سقو سياسة كما قوليسن شعب كيسي عيدا كيسي نما دفاعين آخر كي مركو مرأي عيدا مديسي قيبا كمدي مركي سوق قادين غزية مالها كان إيا غانو سقو الله سعن بيو قالين أي قطسو قالين صاحب حماه ماشا اللي هذا ننكي هيستي الأمير منصور ayuu qutus waraaq kale u diray uu yiri waraan nimanka la wada dagaalano kaasi uu soo aqbalay waxba kama qaba buu yiri mid saddexaad buu la xidhiidhay al-Mughith Umar waa kark Urdun meel ka mid ah nin haystay oo mar horena yiri waan dagaalamaya laba jeerna mu ku soo duulay Masar laba jeer oo horu Masar ku soo duulay waan kan idin markii la qabsaday Baghdad buu isagu duulimaadka xagga ku waday laba jeer buu kaasina wuxuu aqbalay waan anigu adigana ku raaci maayo tataarkana raaci maayo iska dhexdhexaad baan ahaanaya al-Ashraf al-Ayyubi kii la yiraahdo Hims haystay kaana waraaq uu diray kaasina qutus si toos u soo diiday isagu wuxuu yiraahdo anigu safka hoolaakan ku biiraya dawladda xoogga weyn la dhankeeda ayaan raacaya الملك سعيد مثل ورن شري لقب كاهستي حسن بن عبد العزيز بنياس نكي حكومي شري كاسنة وحوق لا يسوونه جيش التتار نتيجة وحي نغط حمان نكي هيستي دبلوماسية دي قطس واقبلوا يسوي حولي واقو صابيري كي حلب يد دمشق هيستي isagoo kii baxsaday jabay laakiin isna ciidamadiisa wixii ka hadha iskaga cararay oo yana ku biiray Mughith ninka la yiraahdo kaasina wuxuu anigu dhaxdhaxaad baan noqonaya adiga iyo iyaga toona raaci maayo labadan kalena waxay ku biireen safka idan shan ayuubiyiina weeyaan mid aqbalay mid cararay oo ciidankiisa aqbaleen mid yiri dhaxdhaxaad baan noqonaya iyo laba ku biiray xagga tataarka ku biiray qutus marka kan wadcigii daakhiliga ha uu dajiyay oo dawlad raacsisan culamadeedii askarteedii bikulli ashkaalaha iyo bulshadeedii buu samaystay hadafku wuu cadiyay oo laba kama aha ee waa inuu wax iska dhiciyo mamaaligtii wuu cafiyey way u soo galeen ciidamadii nafsiyan bay u raaxaysteen waayo ciidanku markuu isagu isku maqan yahay iyo markuu meel u wada jeedo waa kala nooc alcadow alkhaariji wuu kala soocmay oo badhna tataarkay ku biireen badhna isagay ku soo bireen badhna xiyaadi bay noqdeen duwalkii yaraa ee saliibiyiinta iyaga waynu iman doonaa iyo suu ula dhaqmay intii uu wararkan waday tataarkuna waa soo socdeen shaam oo dhan way soo liqeen marka
iyana markaa xuduudda masar bay marayaan gazay marayaan gaza ayuu tataarkuna soo gaaray shacabka masar waa shacab marka kan dhibaato badan oo dhaqaale soo martay tataarka iyo maxaa la yidhahaa sumcaddiisii dii cajiibka ahayd ay odhan jireen haddaad maqasho ciidan tataar baa la jebiyay rumaysan ayaa maahmaaha noqotay wixii oo dhamma mashkilada waa haysata wuxuu u baahan yahay markaa ummaddu intaanay dagaal gelin hamadeeda kor loo qaado in la dagaal geliyo bulshada qaab macnawiya in loo dagaal geliyo masar laakiin iyada lafteeda doctor raghib asarjani wuxuu leeyahay laba qiimo oo fiican baa yaalay laba value oo wanaagsan kow madhab sunniya baa marka kan biyo dhigay oo dee wakhti yar ka hor salaaxaddiin alayuubi ka hor dee dowla alfaatimiya shiica raafidiyiin oo aada u liita ayaa maamulayay waddanka salaaxaddiin alayuubi baa ka qabsaday marka kan culammadii muslimiintu ku soo keenay meesha madhab sunniya si fiican u faafay mamaaligtana waxaynu ku naqaanay inay yihiin dad culammada qadariya maadaama aynu nidhi tarbiyadoodii baa ahayd tarbiya diin iyo dad culammada qadariya rag waaweyn oo culammadii muslimiinta ee rumuusina wakhtigan waa nool yihiin waxaa ka mid ah sulطaan اlculamaa alcizi bn cabdisalaam oo marka kan 80 jiraa nool waa 577 buu dhashaan filaya wakhtigan hadda dagaalka loo diyaar yahayna waa 658 alcizi bn cabdisalaam markaa 81 sano meelahaasaa da'diisu maraysa waxaa jooga alcizi bn cabdisalaam oo ninkii ardaygiisii uu bixiyey maxay sulطaan اlculamaa ardaygiisa waa kuma waa bnu daqiiq alciid marka waddanka culamaa joogta laga yaqaano alcizi bn cabdisalaam ummaddu inaanay culamo tawjiihise ka maarmin baan idin tusayaa waxyaabaha guusha u keenana inay ka mid tahay bacd allahi subxaanaه wa tacaala alcizi bn cabdisalaam wuxuu ahaa caalim sunnada ku adag isla markaa mujtahida isla markaa wuxuu ahaa bay dhahaan nin kulmistay bayna fatwa alcibaada wاlcaqiida wاlfatwa fi اlumuur الsiyaasiya wاlijtimaaciya nin mujtahida buu ahaa bay idhaahdaanoo culumta sharciga ee caqiide iyo sharci iyo cibaada iyo mucaamalaadna si fiican u yaqaana oo ka fatwooda dhanka kale marka loo eegana qadaayaadka siyaasiga nin basiiro dheer u leh oo mufti ku abu ahaa bay idhaahdaan alcizi bn cabdisalaam saynu u fahamno sheekha kani qiimuhu bulshada maca ku dhexleeyaan laba qiso idin tilmaamo kow ciise bn cabdisalaam masar uma dhalan reer masar maaha waa nin reer dimashq ah dimashq buu ku koray dimashq buu wuxuu joogay khatiibka jimceed ahaa qaadiga muslimiinta ahaa muftiga dowladda ahaa laakiin asaalix ismaaciil alayuubi nin la odhan jiro dowla ayuubiya ka tirsan ayaa wuxuu qaatay go'aan ah najmudiin ayuubigii masar haystay mamaaligta ka horreeyey ninkii mamaaligta sameeyey inuu ku duulo dabeetana wuxuu aqbalay inuu taxaaluf samaysto qolo kristana inuu kaxaysto isaga iyo gaaladu intay israacaan inay ku wada duulaan masar bishart gaaladu maxay ku raacaysaa labada magaalo sayda iyo shaqiif la yidhaahdaan idin siinayaa buu leeyahy labadaa magaalo idinku qaata hadday igula duushaan masar waxaanan aqbalayaa hubkana in laydinka iibiyo hubka in laydinka iibiya macnay samaynaysaa ma garanayo saa u fahmi kartaan wakhtigaa hore addowla alislaamiya baa sanaacaadka dunida hogaaminaysay marka iyagay ahaayeen dadka hubka rasmiga ee fiican samayn jiray marka wuxuu leeyahay waxaan kaloo ogolahay muslimiintu inay hubka idinka iibiso oo aynu ku wada duullo qoladaas alcizi bn cabdisalaam oo mufti dimashq ah ayaa wuxuu yidhi boqorku asaalix bnu ismaaciil mulkigiisa shaksigaa maaha buu yidhi dhulka muslimiinta isagu bixi karo waxaad leedaa la bixiyaaye
dhulka muslimiintu boqoro waxaad adigu leedahay maaha buu yidhi sidaa awgeed ma asaxaysa buu yidhi waan bixiyey waa marka labaad buu yidhi muslim baa lagu duulayaa hubkaa laga iibinayaa masiixiintuna laa yajuusu baycu silaax buu yidhi hubkaa in la iibiyaana ma bannaana si muslim loogu duulo inaad ka iibisaan hub iyaduna ma bannaana buu yidhi dabeetana waxaa la yidhi qaadinimada waa lagaa casilay muftinimada waa lagaa casilay duruusta waa lagaa joojiyey khudbaddana waa lagaa joojiyey aamus wax dambe ma sheegi kartid markii wax walba laga casilay ayuu iskagaba tegey magaalada way xidheen mudduu xidhnaa xabsigii markii uu ka soo baxay oo wax walba loo diidayna uu iskaga tegey baytulmaqdis buu qabtay baytulmaqdis buu iskaga talagalay inuu halkiisaa wax ku dhigo wax akhriyo isagoo halkii jooga ayaa ismaaciilkii asaalex ismaaciil alayuubi iyo qoladii kiristanka oo wada socoto duulimaadkii iyo qudus soo maray sheekhiina wuxuu joogaa baytulmaqdis dabeetana ninkani waa nin sumco iyo bulshada magac ku leh weli wuxuu rabaa inuu muslaxdo sheekha nin buu u diray wuxuu yidhi waxaad ku tidhaahdaa fariintaa gaadhsii nin baa u yimi sheekhiyo meeshiisa iska joogo wuxuu ku yidhi sheekh in wixii aad mansab haysato dhan lagugu soo celiyo qaadinimadii iyo madaxnimadii iyo muftinimadii iyo khitaab wixii oo dhan inaad hesho iyo waziyaada weliba dheeraadba lagugu daro waxa kaa xiga uun inaad suldaanka u yaro cudur daaratid suldaanka u tago tankasir leh u yaro cudur daaro oo gacantuun ka dhunka buu yidhi bas intaa u samee suldaanka intaa u tagto salaam dheh khalaas arrimuhu dhagdhag bay noqonayaan wax waliba way dhammaanayaan العز بن عبد السلام وحو جواب والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا أن أقبل يده يا قوم أنتم في واد وأنا في واد والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وحو يلي مسكين يهو إنه أنا قعنت إذا ننقدرها لك ما هي تيسة داينا ننقده أدوح الله قال بغر كسور نوكه يساقوا إنه يمادا أنا ننقده ما ربابكو يلي waxaan kuu sheegayaa buu yidhi idinna dhan baa u socotaan anna dhan kalaan u socdaa isku webi ma haysanna buu le isku dooxo isku waddo ma hayno idinkuna waddaa haystaan aniguna waddo kale ayaan haystaaye ilaahay baan mahadinayaa waxa idinkaa uu idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay dee adduun baa aakhira siisateene ilaahay intuu waxaa idinka idinku ibtilay aniga iga caafimaad yeelay baan waxay dhahdaan mar kaluu xidha dabeetana isagoo khaymad yaroo kanu boqor ku jiro dhinaceedaa ku xidhan oo quraan akhrisanaya bay yidhaahdeen baa waxa u soo galay saliibiyiintii baa waxay u yimaadeen ismaaciilkii iyagoo la hadlayuu yidhi qur-aankaa baxaya ma maqlaysaan markaasay yidhahdeen haa wuxuu yidhi waa muslimiinta wadaadkii ugu weynaa ayaa halka igu xidhan waxaanan u xidhan arrimihiinuu diiday yacni waa uun irhaabigii ugu weynaana waanu haynaa duwalka reer galbeed marka kii ugu weynaana xabsiguu igu jiraa weeyaan qoladaas marka wuxuu leeyahay kii ugu weynaana halkuu joogaa oo uu xidhan yahay laakiin qolada masiixiyiinta waa qaar ka caqli badan ba ninka kan waxay ku yidhaahdeen annaga hadduu ahaan lahaa qisiskayga ugu weyn cagihiisa intaanu maydhnaa baanu biyihiisa cabbi lahayn bay yidhahdeen inaanu xidhna daaye dadkaba ninkii cilmiga u hayay dad xidhatay annagu maanan xidhaneen bay yidhahdeen ka noogu weyn intaanu addimadiisa maydhno ayaanu cabbi lahayn nasiib wanaagse waataynu dhi najmudiin ayuub markaynu ka soo sheekaynaynay qoladan wada socotoo dhan intuu jabiyey buu baytulmaqdis xoreeyey 643 waynagii soo sheegnay in la xoreeyey baytulmaqdis meesha dadkii lagu xoreeyey buu ka mid ahaa sheekhu markaa wuu kaxeeyey najmudiin ayuub baa kaxeeyey oo geeyey masar baa laga dhigay muftigii iyo qaadigii iyo wixii oo dhan laakiin sheekhu markuu masar yimi ayuu wuxuu u yimi niman mamaalika oo umara oo dadka xukumo oo caynkan oo uu boqorku leeyahay dabeetana haddana sheekhu masar buu fatwo kale ka soo saaray nimankan beecooda iyo maamulkooda toona laa yajuus ma bannaana buu yidhi oo sheekh maxaa dhacay waa addoommo buu yidhi cidima xorayn
مناصب العليا للدولة الإسلامية حرمة وشرطية بيعودنا ما صحوا ولواء الضوء مبيولين ما كانوا وحبك ما صعدان دولة دن أو مالك تلين شيخ يمي لكن فتوى دي سهدنا وحي تاجدها هي وحين كان سيدنا وما صعده والله عراض إلى حد يسكت ديانين الدلال متكمدة المرة هو ويناي قلادة التنبا وصوق علي سوى الربين الدلو سيفتي ستة اللي يدي الباب وفوق راعي شيخ أيضا ودليبا ويما وحدابا وهيب له سيف ستة marka uu garanaya de mamaaligtu radhigu wala fududa waa hebelo naayfiyo safety sina sito hubaysan wuxuu ku yiri wariya abaha in ilaahay dartii loo dilo uu ka liitaaye kafur albaabka soo daabo ku yiri yani haday shahaada fi sabiilillah haru dhimanayo waxaas dhib ma habo yiri soo daa uu soo galay markuu uu soo galay sheekhu buu hadana dib u baqa sheekh maxaa saarna ugu sameeyay warka loo bilaabay sheekhu wuxuu istaagay halkiisii hadaan rabtaan saasu ma leeyay boqorkii bay gaadhay boqorkiina wuu cadhooday sheekhi uu baytul quds isagoo maxbuuska ka soo daayay caynkaas hadana fataawidan bixinaya boqorka laftiisa uu ka cadhooday markii la cadhooday Izzuddin ibn Abd Salam wax kale ma sameeynin wuxuu dhacaynka ma tahay خلاص qaadinimada iyo muftinimada iyo maamulka iyo wixii noo dhaqaata mar hadaan la ogolayn mabaadi diina inta sheegay inay faafto waan iska tagaya dameer uu haystay buu fuulay reerkiisina dameer kale uu saaray magaaladana uu isaga baxo tuulu isaga baxay wadaadku adduun laba dameer buu ka wataa laakiin ma saro dhaba ka daba dhaqaaqay العز بن عبد السلام قال هذا دوك بحبل ليا جوغيا تجارتي علمادي ددكي وخي با ولا دبا غلay boqorkii ba war loo geeyay waxa la yiri magaaladu waa gilgilantay sheekhina safar yani culimada dadku culimadooda way qiimeynayeen agteeda culimada magac ku lahayd walidalik ba sheekhu wax ma dilin wax ma maagin waxba kala ma sabaynin mujarrad waanu iscazilay waanu iska tagay laakiin magaaladii dhamayd ba daba gashay boqorkii wuxuu arkay in qadiyadiisu ay khatar ku jirto isna uu ka daba tagay boqorkii buu wuxuu tagay al-Izz ibn Abd Salam baa loo tagay sheekh soo noqon baa la yiri wuxuu soo noqon maayo fatwadaas oo fulisaan mooyaane oo maxaa see loo fulinaya nimankani waa adoomo waa la iibinaya suuqan geynaya waa la iibinaya marka la iibiyo ragga iibsada ha xoreeyaan markay xoroobaan haday doonayaan maamul u dhiiba marka adigu madax ka dhigo ومدحدي دولته يبينيا halkaas uu taagay isagu anuu nimanka madaxda waan iibinaya buu leeyahay hadii aad aqbalayso sidaana waa soo noqonaya hadii kalena oo soo doonaysa baa leeyahay lacagtooda baytul maal ka ku shubaya buu waan iibinaya dabatana muslimiinta ku bixinaya danahooda guud waxay noqotay dawladdu inay khalkhal gasho iyo in la aqbalo fatwada al-Izz ibn Abd Salam waxa la yiri waa la aqbalay oo soo noqday madaxdii umaradii buu yeeray kolba mid buu soo taagay ayaa gadanaya dabeetana qiimaha la sheega uu qaaliyay intaas in ma yabu yiraahdaa doonka dawladda alaho qiimo qaaliyo ku iibiyay lacagtii uu ku iibiyayna khidmaadka muslimiintu ku bixiyay maxaan u sheegayaa qisada al-Izz ibn Abd Salam waxna waa inaan idin tilmaamo dawladda qura maaha waxa dagaal galay ciidamo qura maaha waxa dagaal galay waxa weeyaan ummadani waxay haysataa rasiid dad shacabkooda haday wax u sheegaan ay shacabku aqbalayaan waan maamul iyo askar ku xidhnayn walidalik markii tataarka qadiyadiisi soo dhawaatay dawladdiina nin saalix uu qabsado Quds la yiraahdo Qudsna go'aanka uu qaatay inuu dagaal galo siyaasadda khaarijiye iyo daakhiliye ba uu nin ku guuleystay noqday ila xadin ma ciidamadiisi iyo wixiisii oo dhan urursaday muslimiintii dabadda joogtay wixii uu la heshii karay aqbalay oo dhan uu la heshiiyay wixii gaalada raaciyay inay toos gaalada u raaceen waxa loo baahan yahay shacabkan in la dhiiri galiyo ay dagaal galaan shacabka masarna waqtiga kan de dagaaladii front guard oo de kristanka bay ku jireen dagaaladii crusadeska marka waa shacab qiimatul jihad aanay wali agtooda ku dhimanin al jihad fi sabilillah waa shacab wali
وقته ذا كنوا ليهي قضيته هل كأمر كي مريسه وإن لأن شعب كي مصرنا والله خطبة ديي وعلماء دي والله هذا الشيء ومدي ولا دقال قليي أيه لك وراق صادرة وراق ذا وحوسه ديبي أفرن وتطاركي كم ده dabeetana nimankii rususha ahaaba magaalada qaahira soo galay waraaq bay u keeneen qutus waraaqda maxaa ku qoran bismi ilaahi السماء الواجب حقه الذي ملكنا أرضه وسلطنا على خلقه الذي يعلم به الملك المظفر الذي هو من جنس المماليك صاحب مصر وأعمالها وصائر أمرائها وجندها وكتابها وعمالها وبادها وحاضرها أن جند الله في أرضه وهو لك شجرية أن جند الله في أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيده فركم بجميع الأمصار معتبر وعن عزمنا مزدجر فاتعذوا بغيركم وسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء ويعود عليكم الخطأ فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي بلاد تحميكم رسالة دتان ورسالة دير ولكن وحلي مقع إلها عرك له أي واجب كطاعة ستهيبا كوب فرفرطي ee dhulkay makansiiyay ee khalqigiisa igu salliday boqor yahuud uu yiri meesha jooga ee waliba adoomaha kamid min jinsi ilmamaalik ka tirsani ee masariya inta uu dhow xukuma waxaad ogtahay buu yiri anagu inaanu nay askartii ilaahay carada ilaahay bana laga abuuray wixii rabbina ana wana lagu salliday waxaan dul soo baabi'iyay باكو غفلا عبر قادشو ددك كلا كو عبر قادبو لي ومحيل أمركينا نوديب انتان عيبتي نموغا وقفكي نويدن كدعين أنه كو أويا ومن حريصانه كو أشتكودا وما قلبي دبعنه دولك وانو فرن فساد كان وانو كترترن واجب إذنك أورد با إذنك أبويري أنك إريشان واه إن إذنك يا عدان وواجب كي نبولي أن إنا إذن عيمديا وواجب كي سارا دولكي إذن هوين كره حقا سيفتي يدك قلي كرتاك قعنت يدا لقما بحصده فردها يقا لقما ديريو سيفتي يدو واسد الضنبك ورمها يقو واكوا وحشيحة قلبيada iyadu waa sida buuraha tirada iyadu waa sida ciida qalcad iyo xusuuni yaani meel la gala wax nagama celiso ciidan la sameeysta wax nagama anfacaan bariyadiina looma aqbalo waayo buu yiri xaaraanta cunteen oo salaanta ina celisaan baad diideen oo dhaarta beeniseen oo xuquuqul waalideynka idinku tirabatay oo ciidanka ay ku badan kub bushaaraysta buu leeyahay dullinimo iyo mahana markaasuu quraanna ku soo qoray meel kasta adib munaafiqa jooga kuwan wuxuu soo qoraya afkan arbeeda caynkana soo qoray waa udaba munaafiqiin oo tatar ka tirsan quraan bay soo istidlaanayaan dhayso warqada walaaka waxa ku qoran فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هولاك سوقرية ما أنت بولي عذابك وح دلية أيها ليدين وحا عمل سميسين دراديد كوا ظلمك السمائية ما يشعون نقون دونا وقران دونا بولي هولاك وحلية وقد ثبت أن نحن الكفر وأنتم الفجر بولي واسوقت بولي أن نقولنا نقالني إذنين فاجرين تهين وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور لكن وحنا وكين التحامي بيقولي الله قعنتي سوح ولبكو تشيران
تربدني دون أنك أكتيا ووحير بيري شرفتي أن أكتيا دوا ذليل لمو ما لملوككم علينا بغير المذ دل النمو وحانا هين بولي أن بغرطويو يمكن نوها يا مجرته وراقضا حقوق بقبي فلا تطيلوا الخطاب وأسرعوا رد الجواب وركنا يقول بديننا جوابتنا نخصو صادرة وريرا كوبا ويس ديبنيون صادرة ده وحلا لدي كما سوغي وياه ساسو هولاك صاقرة والرسالة أن دبلوماسية أقوانين دولكم مركب ولا هضليان ولو ضعيف يكرا الله الله يساه نوع من ماء الوجه بيو الدوران oo sida askartu ama dadka suuq u wada hadlaan loolama hadlo qofka dawlad maamula walow daciif iska yahay idinka arkay dawlada yar yaro intay dawladaha waaweyn u tagalayda danaha labada dawladood baan ka wada hadalay sidii mustaqbalka loo horumarin lahaa waa luqad diblomaasiya qofka ma il wajhi baa loo ilaaliyaa laakiin hoolaakad xataa taasi kuma jirto risaaladiisu waxa weeyaan waa dagaal waxaana weeyaan isdiiba idinku aan wax shartiya ku xidhin wuxuu isugu yeedhay markaa qutus qaadadii iyo umaradii iyo wasaaraddiisii buu isugu yeedhay wuxuu yidhi ciidamo gardaran baa inugu soo socda ciidanka gardaranna war naga noqda cidi kuma qancisa buu yidhi war naga noqda kuma qancaan ee waa la qasbaa inay kaa noqdaan aniga waxay ugu muuqataa buu leeyahay inaynu wax iska dhicino waa khiyaar sacab akbar dawla saddex dawladood oo waaweyn oo muslimiina soo liqday min Turkistan sharqiya China laga soo bilaabo muslimkii joogay ilaa iyo Gaza marayaan Falastiin inta ka dhaxlay wixii muslim joogay way ka soo takhaluseen xagga shishe ونمكي كتخلصي China iyo Korea iyo wax duwal 12 dawladood oo yaryar meesha ku taxan ايش iyo dhamaytay soo laqay ciidanka inta laakiin laga hortago khiyaarka ay la qaataa khiyaar fudud maaha waayo dawlad Korea ila Poland bay ka taliyaan inta u dhaxaysa marka kan Korea ila Poland inta u dhaxaysa ka taliyaan waa dawlad ka hub badan ka sumcad weyn ciidankeedu sumcad badan haysto ciidamo waaweyn oo muslimiina oo dawlad khawarizmiya iyo armeniya iyo kurjiga ama georgia iyo dawlad abbasiya iyo yurub iyo shaam waxa soo dhanbay liqeen qutus laakiin wuxuu leeyahay waxa rabaa inaan dagaalamo qaadadii iyo ciidamadii inuu qanciyo dagaalkuna ma fududa لكن محو استعماله وحيد هذا لما طريقه استعماله كو وحيد وريا ومدحني عند الله الضياء وروان دقالما يا بولي وان دقالما يا مركز الله يحينا عيد مدري مايو أنا ألقي التتار بنفسي أنا تتارك نفتي ذكره ارتقية ماها دولتي عيدني وحدري ما يبوليه anigoo askariya oo dagaalamaya ayaan frontka tagaya waa woodi karay waa nin madaxeed madaxweynihii wadanka inuu ciidamada ilaado dagaal taga laakiin wuxuu leeyahay dadku raba inuu qancaan dantu doonayo buu rabaa inuu dadka ku qanciyo wuxuu leeyahay waan dagaalamaya qaa'idkuna hadduu ummadda ka horeeyo ummaddu way daba socotaa saxaabada maxaa geesinimada baray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam madiina habeen qayla yeedhay dabeetana nabiga uu soo horbooday abu talha farasuu leeyay ayuu dhufsaday farasku kooraya waxba ma wato waa leedo ma sugin inta wax la saarayo wuu baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam intii dadku isu soo baxbaxayeen ayuu soo noqday nabi maxamed isagoo le lam turaacu waxba cabsanina yani ana ka warkeenay meeshii dhibtu ka jirtay waa qaa'id al-umma isagu ka warkeenaya halka dhibtu ka jirto oo saxaabadiisii geesiyaada ahabu u soo noqday isagoo faraska wata markaas wuxuu ku leeyahay lan turaacu laqad wajadtuhu bahra hadithii bukhari faraskan abu talhana waxa sa hadithka ibn majah tilmaamay waxa lagu yara tilmaami jiray inuu faras gaabiye yahay nabigu wuxuu yiri waa bad kari orodka
waxay yidhaahdaan maantaa kadib lama qabanin faraska laftiisana faras dheereeya alla ka dhigay si kastaba ha noqotee qaa'idku hadduu ka horeeyo ummadda oo waxaan uu sheegayo isagu ficliyan u samaynayo ummadda way daba gashaa walidalik buu caliy bnu abi aalib oo geesiyadii muslimiinta ugu weynaabaa wuxuu lahaa marka dagaalku adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu leeyahy waxaynu naqanaa ghaswatu xunayn markii la jabay la cararay nebi maxamed intuu dhawaaqay buu lahaa ana nebiy ana bnu cabdilmualib laa kadib iyadoo saxaabadiisii jabtay oo ay ahayd hadduu saxaabadu jabto inaad yaro dhuumato ama uun si uun samayso ayuu nebi maxamed qaylinayaa weli oo leeya anigu waxaan ahay nebigii alla soo diray ina cabdilmualib baan aho been maaha buu nebi maxamed leeya calayhi salaatu wasalaam qutus wuxuu rabaa markaa atarbiya bilqudwa jananadiisa iyo ciidamadiisa inuu tusiyo inay shahaadadu wax la doonto tahay inaanay noloshu wax la isku adkeeyo ahayn markay u baahan tahay inuu qofka muslimka horu maro walidalik buu wuxuu ku yidhi waan dagaal gelayaa waa markii koowaad shay labaad buu u sheegay oo wuu wacdiyey wuxuu yidhi yaa umaraa'i almuslimiin lakum zamaanun ta'kuluuna min bayt ilmaal wa antum lilguzaati kaarihuun waar madaxdii muslimiinta waar in badan baa xoolihii dowladda muslimiinta cunayseen buu leeyahay maantana dagaalkaa soo nacnacaysaan anigu waan baxayaa ee ninkii raba inuu dagaalamo u iraac ninkii aan rabinowna waan ku fasaxaya iska hadh buu leeyahay laakiin waxaad ogsoonaataa dembigaaga iyo dembiga dumarka muslimiinta iyo ummadda muslimiinta inay adiga luquntaadotay ninka hadhayo khudbadaasuu u jeediyey khudbadiisu waa laba shay waxa weeyaan anaa dagaal gelaya shayga labaadna waxa weeyaan idinma qasbayo wixii raba inay dagaalamaan oo raaca jihaadka la isuma qasbo nebi maxamed marnaba munaafiqiinta ma qasbin bale intuu baxaaba iska hadhaan hadhowna waliya bilay maraano way cudur daartaano wuu ka aqbalaa bale isagoo sii socda kolba ninka daba yimaadaa markaasaa la yidhaahdaa nin baa soo socda ilaahu hebel ka dhig buu yidhaahdaa yacni danka ma lahayn munaafiqiintu inay hadhaan ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamay hadday idinla baxaan laa udacu khilaalakum ilahay wuxuu tilmaamay hadday idin raacaan munaafiqiintu inay u fasaad idinku kordhinayaan iyo mashkilad yaani wax wanaaga idin haynin saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam jihaadkiisu mu ahayn mid dadka la qasbo la ydhaha qasab ku dagaalama iyo raaf dad askar lagu qaadaa ma jihatamaan walidaalik khudbad isagoo ooyayu wuxuu ugu gebagabeeyey baa la yidhaahdaa yaa umaraa'i almuslimiin man lilislaami in lam nakun naxnu madaxdii dowladda muslimiinta ahay yaa islaamka uu halgamaya ama difaacaya haddaynan inagu difaacin buu leeyahay kelmaddaasi madaxdiisii way ka oohisay waxaanay qaateen go-aanka ah inay la dagaal galaan qutus wuxuu isku dayey inay arrintu ka noqnoqosho yeelanin wuxuu u yeedhay afartii nin ee warqadda siday dabeetana afartaba madaxuu ka jaray dabeetana madaxyadoodii buu albaab ka mida albaabka qaahiro suray culamada qaar waxay idhaahdaan malaal quds masalada muu asiibin waayo cinda almuslimiin rususha lama dilo dadka ergada ee la soo diro lama dilo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxay laba nin ibnu nawaaxa iyo ibnu usaal laba nin oo la odhan jiru musaylamat ilkadaab soo dirtay musaylama nebi baan ahay buu leeyahy dabeetana nebi maxamed buu u soo diray laba ergey labadii ergey baa nebiga u yimi wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam atashhadaani annii rasuulu ullah waan ma qiraysaan inaan ilaahay rasuulkiisii ahay waxay idhahdeen nashhadu anna musaylamata rasuulullah nebi maxamed bay hortaagayin waxaanu qiraynaa bay dhahay musaylama inuu ilaahay rasuulkiisii yahay musaylama inuu ilaahay rasuulkiisii yahay baanu qiraynaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aamantu billaahi warasuulih anigaa rumeeyey ilaahay iyo rasuulkiisiiba ee haddaan cid dilayo haddaan rasuul erga la soo dira haddaan dilayo waan idin dili lahaa buu nebi maxamed ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee agtayada ergada lama dila buu nebigu leeyahy
قطس لكن مهما كان اجتهادك سكستبه الله مرأيه أفرتيبه انتو ديلي أيها الباب الصري marka kan Quds mushkilada ugu weynahaysa waxa weeyaan waa mushkilad iqtisaadiya waayo ciidan ballaaran oo la dagaal geeyo wuxuu u baahan yahay dhaqaale xoogan isaguna meesha gabigeedaba waqti yar buu saaran yahay Quds maca intuu dagaalka galay maca intuu guuleystay maca wuxuu dham sanad ma gaadho sanad waxa la ugu dhintay marka Quds madaxba wuxuu yahay dhowr bilood wadankeena azma iqtisaadiyana waa ka jirta fitan baa ka jiray mashaakil baa ka jiray tijaaradii muslimiinta guud ahaanba way istaagtay waa kan tataarku bariga wixii oo dhan qabsaday azma dhaqaaleed xoogan baa ka jirta see loo dagaal gelinaya marka saddex biloodna madax buu yahay khasnadii dawladana dhaqaale kuma jiro wuxuu isugu yeedhay culamadii iyo dadkii culamada markaa wuxuu ka rabaa inuu yidhaahdo waxaan rabaa dariiba tax cusub in dadka laga qaado aan dadka ku dagaalgeliyo cashuur ha la qaado buu leeyahay zakadii iyo wixii kuma filla marka cashuur ha laga qaado dadka waxaysta si ciidanka loo hubeeyo loo dagaalgeliyo لكن هل كان حجوغان إن عالم ومفتية وأنقق الله عمر ابن عبد السلام ليلاده ابن عبد السلام وحيري هدي على ولوك مسلمين تكسو دولو وحواجب كوا مسلمين تردمين إلى الدقالمان وانا بنان تهي رعية دي الشعب كإن لقا قاضه واحد دقالك اللقو قاله وكبضان الزكوات كي يوحي لكن بالشرط يقولي هنتي ويدين ما يلا شرط له له بيت المال خزانه الدوله وين شيلن كو هادين بو يري دوله lacag haysata dadka waxa laga qaado soconaysa buu yiri khazanada dawladda ko ween shilin ku hadhay marka labaad buu yiri nimankiinan umarada iyo madaxda ee nin walba dhulka iyo tuulooyinka dhan loo gooyay ee hubka iyo dahabka iyo qalabka haysta idina waa inaad dadka la mid noqotaan aan waxba idin ku hadhin haddii madaxda dawladdu hantideeda keento khasnada dawladda waxa ku jirana la keeno markaasaan fatwoonaya buu leeyahay in dadkana xoolaha laga qaado iyana waa fatwo kale oo adag oo umaradii hadda lagu soo qanciyay war dagaal gala xoolo waxa idinku haysateena geeshka siiya iyada lafteedu ma fududa laakiin al-Izz ibn Abd Salam go'aankiisu waa ka xaraam buu leeyahay shacabka xoolahooda la qaato iyadoo aanay idinku aydan la simanin dee nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiix muslim ka wuxuu ku tilmaamaya fawalladhi biyadi laqad taaba tawba law taabaha saahibu maqsin laghfira lah gabadhii zinaysatay ee la rajmiyay ayuu nabi maxamed wuxuu leeyahay waxay toobad keentay toobad hadduu toobad keena ka cashuurta qaada ilaahay dambigiisa u dhaafi lahaa muxsinada la dilay toobadeedii waxa laga dhigay toobad xataa loogu dambi dhaafaya maxay kan dadka xoolahooda baata ku qaada yani xoolahooda baata lagu qaada kaanama ay ka weyn tahay maxay warku markuu halkaa marayo ayuu Quds wuxuu yidhi fatwada sheekha waa aqbal ana ugu horeeya faraska iyo seefta mooyaane wixii aan hanti leeyo dhan waan ka dhaadhacay buu yidhi oo ka daadegay waxaan hanti wato waxaan aqbalay in ciidamada lagu wareejiyo mar haddii dee madaxweynihii wuxuu haystay wareejinayo waxay noqotay umaradii iyo dadkii kalena inay aqbalaan waxay haystaan inuu wareejiyo al-Izz ibn Abd Salamna wuxuu fatwooday dagaalku wuxuu u baahan yahay hantiya marka in la bixiyo masarna sheekheeda waa daba socotaa marka mushkiladii dhaqaalahana waxay u muuqataa in la xalilay xalkeedii la helay ciidankii waa la diyaariyay waa la dhaqaaqay waxaase markaa iyana mushkilada wuxuu qaatay go'aan ah inaanu masar gudaheeda ku sugin waayo wuxuu leeyahay ciidanku hadduu masar jabo meel dambe uu isku urursan karaa ma jiro marka waa inaan ka hortagaa buu leeyahay oo dhankay joogaan ugu tagaa laakiin xaggan ay joogaan markuu tagana wuxuu soo dhaafay
dawlado yaryar oo badan oo masiixiyiina oo ka baqay inay ama wadankii u weydaartaan dagaal ama isagaba ay xagga dambe kaga dhuftaan intay heshiis la galaan tataarka mal amal idan ma yagu ku bilaabaa kuwa kale wadadu banaystaa hadduu wadada banaysto kuwan ku bilaabana tataarka oo boqolaal kun oo askari haysta wuxuu gaadhayaa isagoo dhaawac iyo dhimashaba sita oo dagaal la soo galayo dhib qaba iyadoo awalba laga xoog badnaa haddana ciidankii oo soo dagaalamay inuu tataar gaadhana waa dhib badantay wuxuu qaatay caqliyada ah inuu kuwa taxyiid alacdaa yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dagaalada galayay muu odhan gaal oo dhan baa la dagaalamaya laakiin wuxuu go'aansaday inuu quraysh la dagaalamo oo iyagaa dagaalka ku bilaabay dadka inta kalena inuu heshiis la galo iyagoo gaaladooda ah yahuud saddexdii qabiilba heshiis buu nabi maxamed la galay calayhi salaatu wasalaam qabaa'il kaloo badan oo carbeed heshiis buu la galay qurayshna dagaal bay isku wadeen siyaasadda islaamiga kama mid aha nin yidhaahda gaalow cirkiiyo dhulkaba iskaga kaalay anaa kuu babacdhigaye ma aha siyaasa islaamiya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay inuu gaalo kala qaybiyo ay mowqica aad daraasayso taariikhda islaamiga ka mid oo rasmiyana waxaad arkaysaa falsafaadkan inay isticmaalayeen raggii guulaha taariikhiga islaamka u soo hooyey qutus go'aan buu qaatay markaa iyadoo saliibiyiinta ay ishayaan iyadoo dagaalkii toddobaad ay marayaan iyagoo ay ka khatarsan yihiin tataarka waayo iyagu istaytaan bay wadeen inay dhulka degaan bay rabeen oo ay kristaanayaanoo mabaadi' bay wadeen qolada tani xoolaha iyo dadkaba way dhacayeen ama waa leynayeen iyagu diin iyo mabaadi'toona may wadin de xadaaraba may wadeen de qoladan asia ka timid ee tataarka ahay laakiin waxaa khatarsanaa marka kan qoladan saliibiyiinta ah wakhtiga kan laakiin wuxuu u arkayey inaanay wakhtiga kan hadduu heshiis iyo nabad helaya inuu heshiis iyo nabadda qaato qutus markaa wuxuu u diray caka ayaa ugu xoog badan imaaraadka saliibiga ah cakuu u diray waa caka xayfa sayda suur bayruut laadaqiya antakiya waxaasoo dhamme waa duwal kristana oo meesha ku taxaniyana waa duwal kristan oo xataa salaaxaddiin alayuubi uu awoodi kari waaye inuu furto wuxuu u diray markaasi rusul uu leeyahay caka waxaan idinka rabaa inaynu heshiino akhiiran markii muddo la wada hadlay waa la heshiiyey waxay ku heshiiyeen wuxuu ku talagalay intaanay tataarka la heshiinin inuu isagu la heshiiyo waxay ku heshiiyeen inay hudna wada galaan 10 sannadood inaan wax dagaali dhex marin labadooda kooxood dhulkaygii waan ka imiyey wixii ciidanku uu u baahdo ee raashinka iyo wixii la mida inaynu wax kala iibsanno dad nabado wax kala gadanaya noqonno abaalmarin haddaan intaa ii gashaan idinkana waxaan idiin samayn doonaa haddaan tataarka jabiyo fardaha tataarka ee khatarta ee taqaaniin baan wax idinka siinayaa buu yidhi oo idinka iibinaya kuwaasaanana wax idinka iibinayaa haddaa idinkuna heshiiskani la gashaan waa heshiis tabaadul ilmasaalix cakana waa meel aada u qalcado xasiina leh way aqbaleen heshiiskaasuu la galay wuxuu bilaabay markaasi inuu ciidankiisii soo dhaqaajiyo ciidankii markii ay caddaatay inuu soo dhaqaajinayo dee kollay dad ama niyad jilicsan ama aan dagaalka jeclayn waxbaa jira askartii wax ka mid iyo waxbaa baxsaday oo markan dagaalka baxsaday qaar baa orodkii xijaas galay qaar baa yaman galay qaar baa maqrib alcarabi u cararay laakiin dadka wixii ku qancay inay dagaalamaan kuwa kani wuxuunbay ka mid ahayn kuwii ilaahay lahaa low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaala wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna wafiikum samaacuuna lahum wallahu caliimun biaalimiin ciidamada wixii aqbalay iyo shacabka wixii dagaal aqbalay iyo dadkii muslimiinta o dhan baa la soo kaxeeyey falastiin sinai meel ku taalla oo saalixiya la yidhaahdo meel bannaana ayaa ciidamadii meelihii casaakirta iyo kuliyaadkii lagu tababarayay iyo wixii o dhan markii laga keenay halkaasuu isugu wada keenay marka kan waxay maraysaa waa awaa'ilu shacbaan
أوائل الشعبان وحين أقنهي سفر بالغ بصدي محي بغداد عاصمة المسلمين دمشق الربيع الأول بالغ بصدي هدنا الشعبان بالشوقه شعبان بمركا وحو كان صدي ووقت جولاي كبيغان وكليلة سيناي وكليلة وقتها حقاقة وقتها كليلة أيو صحارها سي أقبلين كطلابية عيد مديس وكسو طلابه طريقة عصب ومركا كان أن لقوا أقونين دقال كبو استعمالي وحو استعمالي عيدا مقدمة وحوقا إنه السمايه وعيد مديس إن بدا كهرية مقدمة طليعة يعني عيدا كهر صعدة وحبضاني ومدحية سيدة عادي يلا يقانو لكن مركا كان وحو سمايستي عيدا من مقدمة وحوقا عيدا مدى تنوحو ديبي عيدا مدى مصر نكي وغو خبير سنة أيها هوغان كيو دلو ديبي فبرس نكي لورنشري هذا يني أخت والله أعلم وبالله توفيق السلام عليكم